السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا iska warama fiicantiin caafimaadkiina idinkiya reerihiina iyo caruurihiinaba khayr badan baa idin rajaynaya waxaan idin leeyahay mar labaad kusoo dhawaada channelkayga cidii aanan garanayna magacayga waa Faaduma Naasir Cali wakaa kusoo dhawow maanta channelkayga haddaad cusub tahay maanta waxaa idiin sidaa muxuu haayay mawduuc ka hadli doona sideebaad uu maxay ahayd hooyooyinka mashquulsan ay u dejisan karaan hadafyo macquul ah marka maanta casharka masla dhiganaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inuu idin anfaci doono cidii hooyo ay mashquulsan ama hooyo imika bilow ah ama hooyo caruur haysata haday tahay goolasha ama hadafyada aan dejisanayna ma aha wax sidii aan malaysanayna ma aha sida filmaanta oo kale yani wax perfect ya ma aha waan wada ognahay nolosha hooyada inay mashquul tahay oo aad busy u tahay oo adigoo maanta dhan wax qorshaysanaya haddana aad sad rabtaan kuugu dhacayn iyadoo sida ay tahay haddana wax ka caawinaya in aad maxay ahayd hawlahaaga adoo qabsanaya hadafkaagiina uu ku jira meesha caruurtaadina ku dhex jira gurigaagii familigaagii waxaagii oo dhan kuu fududayn doona ee idin soo gudbin doona waxaan rajaynayaa inuu idin anfici doono marka hala ila socdo kuna soo dhawaada like iyo share iyo subscribe na ha iloobina waanu wada ognahay dhamaanteenba in ay ii sheegayaan hooyanimada iyo maxay ahayd shaqada iyo hadafkaagiiba inay hawlo culus yihiin oo ku dhex jirtid oona loo baahan yahay oo bani aadamka ka bilaabanaysa imika hooyada mashquulka ah waxay barbaarinaysaa waa ubadkaasina waxay u baahan yihiin in la gacan qabto wax la baro la hagaajiyo nidaamkoodii cuntadoodii adduunyadan ay imika ilmahan uu soo galayo ina loo hago sida ugu macquulsan iyadoo taasi jirto haddana waxay u baahan tahay hooyadani hadafkeegiina iloobin iyo qorshayaasha dejisatay iyo nafteeda iyo energy-geega iyo maxay heeday horumarkeegaba labadaba marka sidee baan iskugu wadaynaa waxaan oo dhan looma baahna inaad barashar badan si saartid culays fara badan si saartid waanu ognahay inaad hooyadu ay ii sheegay ay isku dayayso intay karaysaba inay ilmaheega iyo reerkeega iyo nafteedaba ay kor u soo qaado iyadoo taasi jirto haddaba maxaa kuu fududaynaya in aad hadafkaagii gaadhid adigoo mashquulsan oo busy ah oo isla haddana halkan soo taaba halkan kala gaadh xagga kala sidan dheh marka insha Allah adigoon isdaalin oo isku furin buuq iyo culays waxaad kaliya u baahan tahay waxa weeyaan inaad maxay heeday gooliska aad samaysanaysid ama hadafka aad samaysanaysid inuu noqdo mid fudud oon adeeg ahayn adigana culays ku saarin oo maskaxdaada aan khalkhal keenayn marka waxaan qodobadaas ayaan maanta idin macnayn doonaa haddii la yiraahdo waanu wadaynaa marka waxa lagaaga baahan yahayna ma ahan muxuu haayay 10 shay ma aha ama 10 qodob ma samaysan 5 qodob ma samaysan waa hal kaliya ayaad dejisanaysaa halkaa gool ayaad ku wadaysaa maxay ahayd noloshaada goolkaasina wuxuu noqon doonaa energy-gaaga inaad ilaashatid energy-ga hooyada inay ilaashato iyadoon isku buuqayn culays badan is saarayn waa midda koobaad ee laga rabo inaad focus-ka saartid waa hal shay weeyaan halka shayna waxa weeyaan inaad maxay ahayd naftaada energy-geega aad ilaalisid weeyaan haddaba ii sheegay goolkaaga ama hadafkaaga waxaad u jajabinaysaa wax yar baad ka dhiganaysaa adigoon isku dawaqin wax weyn oo maskaxdaada daalinaya kaana mashquulinaya ubadkaaga reerkaagi midda koobaad waxaad samayn kartaa muxuu haayay waxaad rabtaa inaad wax baratid soo maaha hooyoy waxbarashadaada adoon saacado badan gelinayn maalin walba 10 daqiiqo si ama waqtiga hore subaxda hore soo kacdid caruurtaada ka soo horka 10 daqiiqo si 10 daqiiqo kaga faa'iideyso dad wax baranaysid dad quraan dhiganaysid dad xadiis akhrisanaysid dad dhageysanaysid 10 daqiiqo naftaada si energy-ga ugu horeeyo soo maaha 10 daqiiqo naftaada si aad wax ku baratid ama quraan baro aniga san kugu soo sheegay haddaad rabtid sayfin inaad samaysidna hooyaa leeyahay baahida reerku way badan tahay waan ognahay suuqa haddaad tagtid waxyaabo badan oo liiska kugu jiro qorshaysan baa iska soo guranaysaa oo ubadkibaad ka fikiraysaa baahida reerka sayfinka halkaas uu kaga baxay isaga waxaad samaysanaysaa marka $5 week walba meel yar ku rid ama account ku rid ama daasad ku ridaba dhisa adigu jeceshahay ama meel gurigaaga ku xarayso maxaa kuu soo haray so imika waxaan kuu sheegay waa 3 waa energy-gaaga inaad kaydsatid
goolalkaaga kale waxaad sef garaysanaysaa maxaa $5 wiigiiba dhe waa hooyo mashquulsan waxaan ka sheekeynayaa ma ahayn qof ii sheegay aan biisi ahayn ciddii aan biisi ahayn halkaasay ka baxaysaa waxaad samaynaysaa waxbaad rabtaa inaad baratid waanad kari laada ayuu waxbaa sukaa qaban la waxaad samaynaysaa haddana waad 10 daqiiqad naftaada siinaysaa maalin walba wakaa haddaba markaad jejebisid muxuu haaye steps aad u samaysatid oo yar yar oo fudud ood rootiinkaa hagaajisatid inta kalena iyada imanaysa markaa intaa isku hagaajsid ku wadid aad aragtid inaad intan wadi karaysid intaa inka badanna markaa waad gaaraysaa aniga ra'yigayga wayaan Faadumo ahaan oo hooyooyinka mashquulsan baan la hadlayaa ee raba inay hadaf gaaraan hadafkiina karila oo kolba dib uga soo noqonay sanadka kale ku dhamaanay haddana sanadkii kale ku soo galaya sidaasaanu kugula talin lahaa hadday ku cajabisay waa qaadan haddaynu ka cajabina dee si kale ka fudud badoon insha Allah waxa kale oon ku dari lahaa oo qodobka saddexaad isaguna ah haddii aad rabtid muxuu ahaa inaad u shaqaystid si macquul ah ya waa inay kaa go'naataa ama aad ii sheegay gool ama hadaf aad samaysanaysid wax kaa go'an inuu yahay oo naftaada la gaaraysid muxuu ahaay adigoon ismashquulinayn isdaalinayna haddaad caruur yaryar haysatid oo aad u yaryaroo weli imika gurguuradkii bilaabay midi imika socodkii bilaabay midi imika uu yahay 4 jir meelahaas aad u caruur yaryar aad u sii yaryaraadisatid lagama yaabo inaad iska jawalka dajisatay oo si fiican kugu shaqayn doono xitaa 10 daqiiqo iyo waxan aad samaysanayno ama $5 meel ku safe garaysanaysid waana caadi waa wax macquul ah oo hooyo walba la soo daristaa haniyad jabin maalin bad gaaraysaa waa ina halka ka sii wadaa oo istiraada maanta haday ii noqon weyday bariba ii noqon doontaa insha Allah marka waxaad samayn kartaa hadii aad tahay hooyo aan maxay ahayd shaqaynaysa saacado badan ama 8 saacadood ama 10 saacadood shaqaynaysana iyadana waxay iyadna noqon doontaa ina hadafkaad dejisatay inuu aayar u socdo oo de yani speed una noqonayn marnaba oo yani energy-gaaga inta ugu badan hu shaqada aad qabanaysa ama guriga ka shaqeey ama dibadda ka soo shaqeey ay ku qabatami weydo iyadana waxaad samaynaysaa waa okay oo haniyad jabin baan ku leeyahay maalin uun baad gaaraysaa hadafkaaga oo ku hagaagi doonaan wax waliba laakiin waxa laga rabaa adiga hooyada mashquulsanay inaad mar walba maskaxdaada ku haysid ina hadaf aad leedahay oo aad maalin uun aad gaari doontid laakiinse ay waxana waqti ay tahay waqtigaana insha Allah maalin uun bay ku gaari doontaa ee mar walba qorshaad samaysatay iyo hadafkaad rabtid inaad gaadhid inaad maskaxdaada ku haysatid step by step ayar maalinba in yar xitaa haddii aad awoodi weydid baan ku uri weekligaas waxaad samayn kartaa xitaa bilaad ka dhigan kartaa ya oo wixii adiga ii sheegay ku anfacaya dee waa kaas halkaas qodobka saddexaadna isaguna uu ku joogayaa kii afaraad oo ah midkii ugu dambeeyay iyadana waxaad samaynaysaa progresska aad ku jirta ma shaqadan aad ku jirtid socota in wali aan dhamaan iyadana aad ka gaari doontid guulaheega mar walba u dalbaaldeg haddaad shay yar qabatid waa guulaad gaadhay haddaad wax samaysid ama aad safe garaysatid waa guulaad gaadhay waa u dalbaaldegtaa hadday naftaadu maanta ay ii sheegay wax badan ama wax yar soo qabatay waa guulaad gaadhay waa naftaada u dalbaaldegtaa iloobin naftaadana xaq bay kugu leedahay waxaad samaysaayoo kale muxuu haayeeye shay yar oo step yar walbood qaadid waa muhiim naftaada u sheeg inuu waxaasi muhiim yahay ood soo qabatay ma fahantay dadkeena iyaga isniyad jabiya adigoo ilaahayow maanta dhan buura soo jafeey bay ku odhanayaan maantani ma waxbaa marka looma joojiyo waxaasoo dhan waa ina hore uga socotid hooyada mashquulsan baa lala hadlayaa waa ina hore u socotid oona dib eegin waxaan waa adduunyo waad gaaraysaa marunba kolley howlaha adduunka way badan yihiin laakiin haddana iyada saase qof bani aadan oo nool oo neefsanaya haddaad tahay intaad wadi karisid nolosha wad ilmahaaga naftaada reerkaaga intaa wixii dhaafsan dee anuma garan karo laakiin wixii hareerahaaga kuwii hareeraysan oo dhan ku dhibayana albaabadooda iska xidh cidda doontaba ha noqoto waxaana muhiimadu ay tahay adigoo hadafkaad dejistay adigoo mashquulsan inaad marun gaadhaysid adoon isniyad jabinayn dee waa kaas marka guulahaaga yaryareed gaadhayna
waa inaad ii sheega maxayd u dalbaadegtid ubadkaaguna markay ku arkaan hooyo maxayd soo jeeda oo yacni hadaf leh wallaahi beenkuuma sheegay ilmahaaguna kugu dayanayaa hadduu ku arko hooyo nolosha ka dhacday ama niyad jabsan ilmahaaguna wuxuu is odhanayaa dee iyaduba waa tan sidan u niyad jabsane adiguna maxaa ku daaliyey noloshiba hadday sidan tahay ma fahantay wax kasta oo kugu soo dhaca ama reerkaaga problem ku haysta ama ii sheegay dee adduunyada hawla kama dhammaadaan ilmahaaga ka muhiimsan waxaan oo dhan iyo naftaada marka waxaad samaynaysaa wixii ii sheegay ilmahaaga aduu ku eeganayaa hadduu ku arko adoo laciifsan isaguna laciif buu noqonayaa gool haddaad dejisatid ama waxaad seefgaraysatid ama adduunyo ama aakhiro aad u shaqaysanaysid adigoo ku eeganaya ilmahan aad dhashay ma fahantay labada waalidee maxay heday ilmaha dhalayna waalidku hooyaduu uga dhow yahay aabaha inaad u fiirsateen mooyaane hooyadaasi marka iyada ku xiran tahay ilmaheega in ilmo adag oo maxay heday oo muxuu discipline leh oo hameeyay de meel sare ku hameeyay uu yahay hooyada ayay ku xiran tahay ilmaha marka iyada ayuu eeganayaa ilmahani waxaan u soo yacni macnaha aan sanadkan transformationka ka sheekeynayo dhan wuxuu ka hadlayaa yacni hooyooyinkeena waxaan arkay intooda badan waa dulman yihiin hooyo Soomaaliyeed keliyana ma aha wallahi been idin ma sheegayo muxuu ahaa dumar badan oo Arab xataa wallahi xataa aan asxaab la ahay way jiraan oo iyaguna aad u dulman oo naftooda ka dhaadhiciyay maadaama aad guursatay oo hooyo noqotay ninkan ka mas'uul yahay khalaas mustaqbalkii iyo hamigii iyo wixii dhan uu ka dhimanayaa waa sanamka halka dhex fadhiya qalfoof bilaa ruux ah marka ilmahaad korinaysid adoo ku eeganayaa loomana baahna yacni hooyo niyad jabsan hooyo daalan hooyo murugaysan hooyo maxay heday habeen iyo maalin fikiraysa de inaga isugu wacan runta ilaahay haddaan ka hadlo inaga isugu wacan dumar ahaan inaga isku sii dayna waxaan oo dhan inay na khalkhaliyaan marka waxaad samayn kartaan anigu idin kula talin lahaa cidii taladeeda qaadanaysa ama ra'yigayga inaad naftaada enerjigayga iyo nabadeeda iyo maxay horumarkaygaad ka shaqaysid ilmahaagana markaa unbaad wax u qaban kartaa ilmahaaga xataa ii sheegay adigoona u sheeginba uu ku eeganaya ma fahantay wallahi isma faaninaye markuu arkay inankaygan anigoo fadhiya oo wax qoraya wax akhrinaya wax dhagaysanaya wuxuu ku yiraahdaa maama casharkaaga baad qabanaysaa mise shaqadaadii runta u sheega waxaan ku yiraahdaa shaqo qabanaya maama shaqan qabanaya haddaan idhaahdo waan shaqaynayaa na shaqan ka shaqaynaya marka wuxuu ii garanayaa hooyadii inay qof shaqaynaysa tahay ama wax dhiganaysa ay tahay ama quraanan akhriyo ama ii sheeg wax naftayda wax ku soo kordhinaya mooyaane inaan wax kala qaban anigu ilmahaaguna aduu ku eeganaya hadduu ku arkado habeen iyo maalin TikTok ku jira ama YouTube iska daawanaya ama film iska daawanaya isagana maxaad ka sugaysaa marka wuxuu qaban marka ilmahaas ya wuxuu odhanayaa isaguna hooyadayba saabay samaysaa ama aabahayba saas buu sameeyaa maxaa aniga marka anigana la ii wareerinaya marka ubadkan inagayna eeganayaan adigu waa inaad naftaada hagaajisid hooyooyinow ilmahaaguna dee adaa 4 saacadood ama daba socda ama guriga la jooga raggu dibadaas inta badan ku maqan yihiin hadduu aabahu dee xitaa maxayd uu aabbo wanaagsan yahay deeyo ama uu soo shaqaynayaa hadduu guriga joogana dee hadduu wax u qaban karay uu qaban karaa laakiin ilmuhu hooyaduu uga dhow yahay mar waliba ubadkuna hooyada weeyaan waxay ii sheegay ay adkaysiga dadaalka iyo hamigaba hooyada weeyaan markaasaan idin sheegayba dee waa kaas waxaan ku gabagabeynayaa in aad mar waliba muxuu ahaa aad goolalkaaga aad u jebisid wax yaryar oona ku dawakhin iyo inaad si daacada u qabsatid waxaanaad qabsanaysa ama hadafkanaad samaysanaysid oo dhanba iyo inaad wax kasta ood qabatid maanta soo qabatay ama kuu soo qabsoomayba aad u dabaaldegtid saa idin sheegay dad cunto karisida gurigaaga si sarritaad bustaa ka leeftid waa inaad dalbaatagtid oo isku ammaantid haddaad ilmahaaga wax fiican u qabatidna ayada laftirkeega waa inaad dabaaldegtid waayo hooyooyinku aad bay u adag yihiin waana lafdhabarta nolosha dhan ee bani aadamka ay ku xidhan tahay haddii lafdhabartaas ay laceeftana ilmahaagana ogow inuu laciifayo ma fahanteen
dawaka halkaas kaga baxaya aad iyo aad baad mahadsantihiin marka wad istaahishaa inaad maxay aad riyooyinkaaga aad gaadhid inaad guulahaaga gaadhid adigoo mashquulsan adigoo daalan adigoo rafaadsan wallahi waxa la qoslayaa anigu meel fog baan ka yimiday meel fog maalin baan idinka sheekeyn doonaa insha Allah podcast wayna kasoo duuba kaasi marka waxa weeyaan inaad albajab walba kugu soo dhacaba aad kasoo kaban kartid adigoo ilmahaaga iyo naftaada eegaya wallahi marka hana iloobina waa gabagabadii channelkayga subscribe ii dhaha cidii aan garanaynay share iyo like iyo comment fiican iga taga aad iyo aad baad mahadsantihiin maca salaama videoga kan ku xigana was arki doona insha Allah imka wige hal maalin ma soo galiyaa videoyada oo ma haleelo wallahi wax barasho ku jira shaqan ku jira dhinacan kale ilmahaygan macallin u ahay su'aal kasto la weydiina ilmaha uga jawaabo weeyaan oo maama xaadira noqdo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa bye bye asar wanaagsan يا خير بدن بيدي soo rajaynaya insha Allah inaad ka heshaan videogan aan maanta maxay idin soo duubay maca salaama